badan soo socda kow qodobka koobaad oo ku saabsan waqtiga salaadaha si loo mideeyo adaanka salaadaha faralka ah waxaa la farayaa dhammaan imaamyada masaajidda inay fuliyaan go'aamadan hoos ku xusan qodobkiisa koowaad iyadoo la iswaafajinayo wakhtiga salaadaha sharciga ah iyo kan saacadda waa in la raacaa jadwalka salaadaha ee ay sida sannadlaha ah u soo saarto wasaaradda diinta iyo awqaaftu ee iminkana aan u qaybinayno dhammaan imaamyada iyo mu'adiniinta. laba wakhtiga la aqiimayo waxaa isna la raacayaa jadwalka wasaaradda diinta iyo awqaaftu ay soo saartay. saddex haddii uu ka habsaamo mu'adinku adaanka salaadaha rasmiga ah 10 daqiiqo wax ka badan waxaa la farayaa inaanu mikrofoonka ku adimin ee uu hoos u adimi karo masaajidka gudihiisa. afar waa in adaanka koobaad ee wakhtiga daakiraadda la adimo. adaanka dambe ee salaadda subax ay leedahay labadaa adaan waa inay wakhtiga waa inay u dhaxaysaa wakhti dhan 45 daqiiqo magaalo walba gobol walba degmo kasta. adaanka hore iyo adaanka dambe 45 daqiiqo waa in loo dhaxaysiiyaa oo iyadoo adaankii hore la adimay ee aan salaadda lagu tukanaynin ee qofka loo kicinayay cibaadada waa in kii kalena aan lagu daba qaban. labada adaan waa inay kala soocan yihiin 45 daqiiqana u dhaxaynaya. 5 haddii uu ka habsaamo mu'adinku adaanka hore waa inaanu adiminin oo uu iska joojiya adaankaa hore oo hadduu soo hambabaro oo soo tooso waa inaanu odhan adaankii hore maan adimin ee waa inuu ku kaaftoomaa adaanka salaadda subax oo wakhtigeeda sugaa. 6 haddii uu masjidka uu dersi ka socdo mar kasta wakhtiga adaanku wuxuu ahaanayaa mid ku jaan go'an jadwalka ay dejisay wasaaradda diinta iyo awqaaftu oo adaankii waxaa la dhex gelinayaa dersigii haddaanu dhammaan. waayo waxaa la diidayaa aan bannaanayn in wakhti dambe oo dersigii laga baxay in masaajidkii laga adimo dabeetana dadku ay adaan kala maqlaan. adaanku wakhtigaa uu leeyahay loo jaangooyey keliya ayuunbaa lagu adimayaa haddii uu dersi masaajidka ka socdo iyo haddii kaleba. intaas waxa weeyaan waa qaybta koobaad ee ku saabsan midaynta adaanka iyo aqiimista iyo sida loo agaasimayo. codbaahiyaasha mikrofoonnada masaajidda saaran ee debadda u baxa iyadana waxaa go'aan laga soo saaray kow waa in samaacadaha debadda laga dhigaa cod dhexe oo macquul ah isla markaana gaadhaya inta jamaca masaajidka looga yimaado. 2 waa in samaacadaha la kala jeediyaa masaajidada isku dhowdhow oo masjid walba masjidka kale waa inuu samaacaddiisu aanay ku bixin oo aanay soo gaadhin. waayo waxaa dhacda mararka qaarkood iyada oo masaajidka salaadda lagaga jiro in masjid kale takbiirtiisii masaajidka kale uu soo galo dabeetana dadkii masaajidka ku tukanayay ay takbiirtaa kale moodaan inuu imaamkii ama rukuucay ama sujuuday marka taana waa inuu iska ilaaliyaa. 3 waa in loo isticmaalaa samaacadaha dibadda waxaa loo isticmaali karaa kow adaanka waa lagu adimayaa. 2 aqiimista salaadaha. 3 khudbadaha jimcayaasha. 4 muxaadarooyinka iyo casharada.
intaaba samaacadda dibadda waa lagu isticmaali karaa. qodobka afraad waa in laga bakhtiyaa casharada iyo muxaadaraadka samaacadaha dibadda masaajidada u dhow goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaadka iyo hudheelada la seexdo. waa in laga bakhtiyaa samaacadda dibadda oo la isticmaalaa samaacadda gudaha wixii cashar lagu bixinayo masaajidka iyo wixii muxaadaro lagu gelayo. 5 waa in la bakhtiyaa samaacadaha dibadda salaada tahajudka. wax dhacda ramadaanta in 10ka dambe dadku u soo kacaan cibaadada loo yaqaano tahajudka, dabadeetana dadkii taraawiixda tukaday oo seexday waqti dambe seexday haddii samaacadda lagu shido dee ma seexan karaan, cibaadadoodiina way dhammaysteen. markaa dadka iyagu doonaya intay taraawiixdii tukadaan tahajudna ay ku daraan ama ay tahajudkii tukadaan, waxaa waajib ku ah masaajidda lagaga tukanayo in samaacadda dibadda aan la isticmaali karinin oo la joojiyo oo samaacadda gudaha oo keliya tahajudka lagaga tukado si dadka gudaha ku jira oo keliya ay u maqlaan, dibaddana dadkii hurday aan hurdadii looga kicinin. 6 waa in la bakhtiyaa samaacadaha dibadda salaada duhur iyo ta subax marka la tukado kadib, haddii cashar la dhigayo ama wacdi la jeedinayo. mar haddii salaaddii subax la tukaday ama salaaddii duhur la tukaday labadaa waqti waxa dhacda dadku inay hurdada ku noqdaan ama ayba seexdaan qaarkood. sidaa awgeed waa inaan wacdiga salaadda subax ka dambeeya iyo wacdiga salaadda duhur ka dambeeya ama casharka ka dambeeya waa in samaacadda dibadda la bakhtiyaa si qofkii nasanayey uu nasiino u helo. 7 masaajidada aan lahayn meel laga kala reebo samaacadaha gudaha iyo dibadda waa in loo sameeyaa si degdega marka go'aankani uu soo gaadho. degdeg waa in ay farsamayaqaan ugu yeedhaan kala reeba samaacadda dibadda iyo samaacadda gudaha si markii la doonana labadaba loo wada isticmaali karo intii fasaxa loo haystay, marka kalena la kala reebi karo oo ta gudaha la isticmaali karo ta dibaddana la bakhtiin karo. go'aanka wasaaradda ka soo baxay xagga jimcaha tukashadiisa waxaa kow ka ah laguma oogi karo masaajidada cusub salaada jimcaha ilaa ay wasaaradda diinta iyo awqaaftu qiimayn ku samayso kadibna ay oggolaansho bixiso. waayo iyadoo aan baahi loo qabinin masaajidka in jimcihii laga ogo, masaajidka deriska la'ah ama ku dhow aanu buuxsaminin ayaa laga yaabaa in ay jeclaystaan dadkii dhisay in jimcahana lagu tukado. markaa jimcuhu waa salaad gaara, axkaam gaara bay leedahay. masaajidka hore ilaa uu buuxsamo oo ay keento daruuro ama xaajo iyo baahi ay keento in masaajidka kalena jimcihii lagu ogo, inta ka horraysa waa inaan qofku markuu masaajid dhiso ama xaafadda masaajid laga sameeyo waa inaan jimcaha lagu ogin iyadoo oo aanay arrintaas soo qiimaynin oo oggolaansho aanay bixinin wasaaradda diinta iyo awqaaftu. qofka khudbadda akhriyaya waxaa laga doonayaa inuu buuxiyo shuruuddan soo socota. 1 waa in khadiibka laga helaa tilmaamaha iyo shuruudaha ay shareecadu u dhigtay. 2 waxaa lagu akhrin karaa khudbadda jimcaha af carabi iyo af soomaali, waxaana waajib ah in arkaanta khudbadda lagu akhriyo af carabi oo mahadnaqa alle iyo salliga nebiga iyo dardaaranka alle in laga cabsado, in la akhriyo aayad ka mida aayadaha qur-aanka kariimka ah iyo in dadka muslimiinta loo duceeyo. arkaantaa iyo maaragtay khudbaddu leedahay waa in luqadda carabeed ay ku baxdaa. 3 aadaanka hore ee jimcaha waxaa la addimayaa 30 daqiiqo ka hor aadaanka rasmiga ah ee wakhtiga salaadda. 4 waa inay khudbadda jimcuhu noqotaa mid kooban oo aan ka badnayn 30 daqiiqo. 5 waa inay khudbadda jimcuhu noqotaa mid ku saabsan
danta diineed iyo adduunyo ee bulshada. 6 waa inaanay noqonin khudbadda jimcuhu mid fidno ka dhex abuurta bulshada dhaawacdana wada jirkooda. 7 waa inaan khadiibku ka dhigan mimbarka fagaaro siyaasadeed oo looga ololeeyo cid gaara. 8 waxaa wasaaradda diinta iyo awqaafta ay bixin doontaa kaadh ay siin doonto qofka khadiibka ah ee masaajid walba ka khudbaynaya si loo kala ogaado qofka khudbaynaya inuu yahay kii u haystay sharciyadda iyo inuu yahay qof aan fasax u haysan khudbadda jimcada. waayo qofka fasaxa u haysta wuxuu ilaalinayaa arkaantii iyo shuruuddii iyo waajibaadkii waana lagu og yahay inuu hawsha iyo muhiimadda ummadda u hayo. sidaa awgeed waa inuu qofkaasi kaadh qaataa biidni illaahi tacaala wabilaahi towfiiq.